بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسيني مع الله هاي نقول لي بش بركيسن رمضان أي نعلكم كقايم دونا waxay ahayd laba saddex xadiis maanta soo gudbino. maanta waxa weeye xadiiskeenu ka hadlaya bisha Ramadaan iyo in rasuulka inoo sheegay in albaabada jannada la furo, kuwa naartana la xidho, shayaadiintana la silsiladeeyo. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وقلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رسولك وحين إذا دخل رمضان بشهر رمضان هدايا سوقشو فتحت أبواب الجنة وحلح فراء والله وضع فراء بابنا جنة، وقلقت أبواب جهنم وحلح حرايا سوكر البابنا جهنم، وسلسلة الشياطين وحل سلسلة يا يلا حرحرا الشياطين. هدين شرح حديث كانوا نماذنا حديث كان وحويا حديث كم إذا حديثان البخاري ومسلم با سود وريان صحيحة. مهمة حديث كان وحويا إن أينو كاركينو أما أينو كربحنا معناها إن بشر رمضان ay tahay bil ka duwan bilaha kale oo dhan oo alla siiyay fadli ka sarreeya bilaha kale. haddii saddexda qodob aynu soo sheegnay jannada iyo in la xidho la furo naartana in la xidho albaabadeeda, shayaadiintana la silsiladeeyo, aynu sii kala qaadqaadno oo macnayaasha hoos ugu sii dhaadhacno. culimmadu waxay horta sheegeen in jannada albaabadeeda ayaa la furaa marka layna leeyahay ay dhowr macno leedahay. macnaha inta badan culimmadu sheegtayna waxa weeyaan albaabada jannada in si dhawaa loo furo, si caadiya loo furo. tanna waxay muujinaysaa raxmadda alleh iyo in camalka wanaagsanis ama camalka acmaasha saalixa si fudud loo aqbalo bishan, iyo in fursad weyn ay u tahay mu'miniinta si ay jannada ugu dadaalaan. waxaa jira macnayaal kale oo ay ka mid yihiin in laynoo tilmaamay oo laynoo sheegay ujeeddada xadiiskan, sababaha lagu galo jannada inay bataan oo bishan oo kale inay aada loo badiyo sababaha qofku jannada loo galo u geli karayo. markaa sababtaa loo yidhi albaabada la fura waxaa ka mid a sababahaas salaadii iyo soonkii, sadaqadii qofku markuu doono la bixi karaya, qur-aan akhriskii. dadkana waxa weeyaan inay u jilicsanaadaan cibaadada oo ay u dhibirsanaadaan. jannadu markaa waxay u noqotaa qofka wax dhow oo mar walba dee uu acmaashaydii ku dhex jiro, acmaashii lagu gelayay. rabadaantuna waxa weeye bil jaanis weyn uu qofka muslimka haysto oo uu jannada ku geli karayo oo loona baahan yahay inuu ka faa'iidaysto. haddaynu nimaadno macnaha albaabada jahannama ayaa la xidhaa, tanna waxay inoo muujinaysaa in sababaha keena cadaabta ama qofku inuu dembiga ku dhaco ay yaraadaan. inuu qofka muslimka ah uu ka dheeraado dunuubta, ha yaraadaan iyo ha weynaadaanbe. in jawiga guud ee bulshadu uu noqdo mid cibaado iyo dee alla ka cabsi leh, oo dadka intooda badani ay masaajidada ku xidhnaadaan, salaadaha ilaaliyaan, qur-aan akhriska badiyaan. waana sida loo badan yahay badanaa bisha Ramadaan markay soo gasho. qof walba oo dembi sameeya waxa weeyaan bisha barakaysan inta lagu jiro waa sabab naftiisa ah
ama dhaqan ama caado wax ka noqday weeyaan. Mana jiro shaydaan sidii hore ah oo dadka waswaaskooda ka shaqeeya, laakiinse qofka had iyo jeer bisha gudaheeda dembi ku dhaca waa qof caadaystay ama caado ay ka tahay inuu dembigaas sameeya. haddaynu nimaadno macnaha shayaadiinta, oo shayaadiinta waa la silsiladeeyaa laynoo yidhi. shayaadiinta waa la xirxiraa oo awooddooda horta way yaraataa. sidaa darteed waxaa yaraado waswaaska iyo kicinta dembiyada iyaguna aada u yaraado, oo qofku inuu shaydaanku waswaasiyo way yaraataa. dadku waxay helaan markaa deganaan iyo xasilooni aada u ballaaran bay helaan, qof kasta oo muslima. waxaa loola jeedaana waa shayaadiinta waaweyn inta badan dadka dembiyada iyo waswaaska la raadiya. culamada qaarna waxay noo sheegeen in kuwa ugu daran ay yihiin shayaadiinta la silsileeyo. inkastoo kuwo kale ay jiraan, haddana waxaa jira oo laynoo sheegay in shayaadiinta ugu daran la xirxiraa yihiin kuwa ugu waaweyn. haddana iyadoo saas tahay waxaa jira caadooyinkii weli way jiraan, oo dadkii dhaqamada xunxun dee ay caado ka noqotay intooda badan dee caadooyinkoodii way sii wadaanoo shaydaanku qofku hadduu caadooyin xunxun lahaa oo dhaqan ka ahayd uu dembigu dhaqan ka ahaa, dee shaydaanku haddii uu maqnaadi hadduu jooga wax xog soo beerin maayo. mar walba qofkaas waa qof isagu dembigii iyo dee wixii dadka kale ka shaydaanka ka sheegayeen isagu mar walba la saaxiiba. qofkuna haddii aanu dadaal samayn oo aanu dadaal badan samayn, shaydaan iyo shaydaan la-aanba qofkaasi jaanisada iyo fursadaha bisha barakaysan wadato sinaba ugama faa'iidaysto. xikmadda ka dambaysa ama xikmadda ku jirta xadiiskan, alla wuxuu rabaa oo uu doonayaa in addoomihiisa iyo dadkiisa uu u fududeeyo toobadda bisha Ramadaan. bisha Ramadaanna sideeda waxa weeyaan bil isbedel iyo dib u noqosho, oo qofka iyo naftiisu inay dib isugu noqdaan ay tahay, qofku inuu wax badan bedelo ay tahay. qofku waa bil ay tahay inuu dhaqamo fara badan ka tago. waa bil ay tahay qofku inuu wax badan ka guuro oo wax badan oo faa'iido leh u guuro. waxaynu ka qaadanaynaa bishan horta waa bil ilaahay naxariistiisu aada u ballaaran tahay. waa jaanis iyo fursad aada u ballaaran oo qaaliya oo aan leh sanadkiiba mar la helo. hadday markaa ku dhaaftana ilaa sanadka dambe ma qiyaasi karayno, qofna ma oga goorta uu dhimanayo. laakiinse waa bishan marka ay kusoo martaan lagu mahadiyo oo alxamdulilah la yidhaahdo markaad gaadho. markay baxdana lagu dacaysto in ilaahay ta kala caafimaad qabiya kugu gaadhsiiye cimri dheer. qofkuna waxa weeyaan inuu ku dacaysto mar walba in ilaahay bishanna khayr ugu dhammeeyo, bilahaas dambe ee sanadada dambena in ilaahay gaadhsiiyo oo caafimaad qab ku gaadhsiiyo. waa bilaha oo bisha lagu dacaysto, ilaahayna dhammaantiin hayna gaadhsiiyo. bishanna ilaahay khayrkeeda iyo cibaadadeeda hayna waafajiyo. haddii shaydaanku silsilaysan yahay, waa inaan qofka muslimka aanu marmarsiiyo ka dhigan oo aanu ku gabaad ka dhigan shaydaan baa waswaasiyey, waayo shaydaanba ma jiro bishan. qofkuna waa inuu dee cibaadada ku dadaalo, jannaduna way furan tahay. sidaba laga faa'iidaysan karaa ama bishan looga khayrka wadata loo heli karaa khayrkeeda? waxa weeyaan horta qur-aanka lambar 1 qur-aan akhris joogtaa weeyaan in qofku la yimaado. salaadaha sunnada ah inkoo kale salaadaha ka dambeeya sunnada faralka ah
وين قف كدالا والصلاة والبسنة هي الراعية إلا صلاة الصبح وأنا السنة كدنبين هي صلاة عصر وأنا السنة كدنبين لكن أنت كروين السنة إلالية وين قف الصدقة لبحة وبشن صدقة بدية وين إسعفسك يحررك لوناتية وين لقفوا هذا الدنبية يا حنت يا هذا الله اللقوية لما أنتوا وين قف كفوا هذا حلقي النبي عليه الصلاة والسلام مال محكم ذا نبي أيام ساجك كردح كعي تبينو أصحابتي سويدية أو كوري والمانت يا صومن وواحد بالرمضان أصحابتي واحد كري وأنا صومنا نبي إلهي ساعة عادي قف ولو إسلام بشاس وسومية هي وقاقاره intaa kadib haddana wuxuu weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam maanta yaa qof xanuunsanaya soo booqday abubakar baa radiallaahu canhu yidhi anigaa rasuulka ilaahay soo booqday wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maanta yaa soo booqday maanta yaa la baxay sadaqad abubakar sidiiq ayaa haddana yidhi anigaa la baxay haddana nebigu wuxuu weydiiyey asxaabtiisii maanta yaa janaase raacay ama janaase ka qayb galay abubakar baa haddana sidiisi lamid a yidhi aniga rasuulka ilaahay rasuulka ilaahayna wuxuu sheegay inuu jannada sidaa ku galay qofka intaasoo camal ku kulantana waxa weeyaan waa jannadu sidaa ku galay oo jannada abaalmarintiisu waa janno maanta darsigeenu halkaasuu inoogu joogayaa waxaan idinka codsanaynaa inaad share iyo like iyo subscribe baad nala soo gaadhaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu